بسم الله الرحمن الرحيم. لما بعض صحافة دورت إن سلام يعني وكه الله يا مجا ركا جارها الجودية قبل قابضة شروينها جوحة ما عرفت دعونا إن شاء الله مالين كذب مركات بني سلام يا وحنا نلو نادني وكهر رئيسي شركة صحافات مرتسحفيات كان يدين وناقلها إن شركة أوركا جوحة لقبان دونه أنت وده حيسلحه طبعاً إلا سديد طبعاً ما أنت وحان مركز ربعنا فرصة يدين سيو صحافة دينا فرصة السيو سؤالها وحي سؤالها لحريرة شروينها يارمهاس يدين كل يبقى معرض يدوينها كمسؤولة أو معرض يدران كذا نوم وجنية inta aan marka aan jawaabaha u gelin waxaan rabaa inaan ka hormarsado laba qodob oo muhiim ah qodobka koowaad oo ah maaragtay baaq aan u fidinayo dhammaan ururka xubnihiisa kala duwan madaxdiisa oo aan leeyahay waxa la joogaa waqtigii maaragtay laga kori lahaa wax kasta oo xasaasiyad ah iyo qabwaka iyo hanka maaragtay qofka shakhsiga laga kori lahaa loo daneyn lahaa maslaxadda ururka iyo maslaxadda maaragtay shacabka waxaan ka codsanaynaa marka aan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda ururka iyo xubnihiisa inay ka soo qayb galaan shirweynaha muhiimadiisa ayuu leeyahay ahmiyadiisa gaarka ayuu leeyahay waxaan hor yaala qodobo badan oo muhiim ah oo ay tahay in maaragtay go'aano fiican laga qaato waqti xasaasi ah oo masiiri ah ayaanu maraynaa saas daraadeed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inay laga soo wada qayb galo shirweynaha shirweynahan wuxuu ku qabsoomay sida ku qoran xeerka ururka xeer hoosaadkiisa ayuu ku qabsoomay saas daraadeed waxaan ka codsanaynaa in maaragtay laga soo wada qayb galo si loo wada joogo go'aanada aan halkaa wada aan maaragtay lagu qaadanayo ee lagu gaarayo maanta waxaa la joogaa marxaladii maaragtay ummadda loo daneyn lahaa maslaxadda ururka iyo wadajirkiisa loo daneyn lahaa maaragtay ninna uusan u qaadanin inuu maaragtay ururka iyo maslaxadiisa iyo danta ummadda uu ka weeyahay taas marka waa baaq aan u fidinayo dhammaan xubnaha gaar ahaan madaxda gaar ahaan odayaashii ururka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya haddaan intaa ka gudbo shirka wuxuu socon doonaa 16 ilaa 18 maalinta 16aad waxaa weeye waa kalfadhiga golaha dhexe oo maaragtay qodobada hor yaala iyo ajandihiisa marka ka doodi doona maalinta 17aad iyo 18aadna waxaa weeye shirweynahaasna waxyaabo fara badan oo ajandayaal aad muhiim ah ayaa hor yaala oo ay tahay inay go'aamiyaan oo go'aano maaragtay ay ka qaataan shirweynaha kulli sida xeerka ku qoran qof kasta oo maaragtay ururka uu garanaya waxa weeye waa hay'adda ugu sarreysa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanya ee go'aanada ka maaragtay qaadanaysa saas daraadeed go'aanka ka soo baxa shirweynaha wuxuu noqon doonaa mid maaragtay ku yeesha taaثير ku yeesha ilaa laga gaarayo shirweynaha kale ee ururka shirweynahan waa shirweyne aan caadi ahayn oo maaragtay waqtigiisii caadiga ahaa ma aha shirweynaha aan caadiga ahaynna sida loo qabto waxaa xusaya xeerka iyo ujeedooyinka loo qabto iyo siduu ku qabsoomo marka taasna waa mid aan maaragtay aan ka baaran degnay oo runtii maaragtay sida sharciga ah uu ku dhacayo weeye marka intaasna waxaan rabaa inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan danaynaysa arinta xisbiga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya aad baa u mahadsantihiin wixii su'aalana waa diyaar baan idin insha Allah waa mahadsantahay waa laba su'aalo muhiim weeye midda koowaad ee ku saabsan ajandaha shirweynaha waxa arrimo fara badan baa horta shirweynaha hor yaala marka laga yimaado arinta u gaarka ah xisbiga iyo ururka u gaarka ah maaragtay ama xeerarkiisa ku saabsan shirweynayaasha ururka waxa laga hadlaa labadii shirweynihii ka horeeyay iyo kan inta u dhaxaysay wixii soo dhacay ama ururka ahaado ama ha ahaado maaragtay deegaanka ama gobolka ahaado waa laga doodaa waana la fiiriyaa go'aanadii hore loo qaatay wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoominna waa la qiimeeyaa kadibna waxaa laga hadlaa xaaladda marka lagu sugayo hadday tahay arinta xisbiga dhexdiisa hadday tahay dalka gudihiisa hadday tahay gobolka iyo waxaan ugu xeeran hadday tahay siyaasadda maaragtay kulley saameynta ku leh
arrimaha maaragtay xisbiga ama kule saameynta kule maaragtay dalkaba intaba waa lagu qiimeeyaa markaana waxa lagu qaataa go'aano maaragtay la xiriira arrintaas marka jaddahaas unbaa marka lagu soconaya waana run oo waxaa weeye xaalad adagna waa la marhayaa gobolka xaalad adag buu marhayaa waan la soconnaa Itoobiya qudhigeeda xaaladeeda waan la soconnaa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa lagaga doodaya insha Allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay go'aano fiican oo dhaxalgal ah ay ka soo baxaan oo maaragtay arrinta ku saabsan midda kale ee labaad ee ku saabsan arrinta kala qaybsanaanta xisbiga ee ururka kala qaybsanaantiisa waa run ururka maanta waa la kala qaybsamay kala qaybsanaantaasi wixii ku saabsan kala qaybsanaan ku dhisan mabda iyo principalka ururka waxa kulay isagu wuxuu u baahan yahay maaragtay in qofkii ku taagan principalka ururka iyo mabaadi'diisa in loo hoggaansamo wixii kale ay isagu ku saabsan kala aragti duwanaansho waa niqaash iyo wuxuu galayaa magaranaysaa in meel dhexdhexaad la isugu yimaado habka hadda loo qaybsan yahay waxaa ina xirahaya xeerka ina xiraya shirweynaha maadaama uu ku qabsoomayo xeerkii iyo sharciga ururku ku qabsoomayo waxaa waajib ku ah qof kasta oo ururka ka mid ah inuu ka soo qayb galo qofkii aan isaga ka soo qayb gelin oo iskii uga maqnaada waxa hadda qof isaga iskii uga maqnaada laakiin kooramka hadduu buuxsamo uu ku qabsoomayo kalfadhiga golaha dhexe iyo nidaamka uu ku qabsoomayo xeerka shirweynaha uu ku qabsoomayo oo ah cadad intaa la eg inay ka qayb galaan yani sida masalan inay ka soo qayb galaan ugu yaraan 50% cadadka diiwaan gashan ururku diiwaan gashan boqolkiiba 50 inuu shirweynaha ka soo qayb galo gobolada laga yimaado degmooyinka laga yimaado haddii ay suurtagal tahay maaragtay dadka kula saameynta iyo kula ay yimaadaan oo shirka sidaa ku qabsoomo qofkii isaga ka maqnaada waxay noqonayaa shirweynayaashii horeba in dadna way iman jireen inna way maqnaan jireen marka inta maqan waxay ku qasbanaan doontaa go'aanka ka soo baxa shirweynaha inay u hoggaansamaan qofkii marka isaga iskii uga maqnaada cudurdaalo uga maqnaada waxaa xirahaya xeerka ururka xirahaya go'aanadiisana wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu maaragtay inuu u hoggaansamo midda ajandayaasha ku saabsan shirweynaha kolle ajandayaasha weli lama ansixinin oo shirweynaha ma ansixinin laakiin markuu shirweynaha lagu ansixiyo unbaa la sii dayn karaa la oran karaa maaragtay ajandaha waa sidaa marka haddaan ma maaragtay xaq uma lihi inaan ajandaha aan sii sheego isagoon la ansixinin markaas nidaamka xeerka waa iska middaa weeye midda kale ee ah ka soo qaybgalka qof kasta oo xubin ah oo ururka ONLF ka tirsan xisbiga ka tirsan waa yani ma oranayo ku martiqaadan yahay waxa waajib inuu ka soo qayb galo shirweynaha marba hadduu xeer ku qabsoomayo garabka kale ee marka aad ma aragtaan de waxba kala qarsaneen waan soo ognahay garabka kale ee aan isku diidanahay aragtida ama nabda isku diidanahay waxa weeyaan waxa aan ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan inay weliba ay ka hadlaan meesha oo waxa ay maaragtay tabanayaan ay kaga hadlaan meesha ay sheegaan lagu doodo kadibna maaragtay go'aan midaysan loo qaato ayaan anigu aad u jecelnahay waajibna uu yahay waxaan odhanaynaa inuu yahay waajib maaragtay ururnimo u yahay de qofkii isagu markaa iskii uga maqnaada sidaan u sheegay waxa weeyaan go'aanka ka soo baxa shirweynaha ayuu ku qasban yahay inuu hoggaansanaado waxay ku kala duunaan karaan laba siyaabood way ku kala duunaan karaan shirweynihii gudaha horta waxa shirweynihii ugu koobaad ee dalka gudihiisa markii ku qabanay intii dagaalku u dhaxaysay shirweyne kale uu ka horeeyay laakiin dagaalkii markii aan soo galnay gudaha soo galnay aan qaadanay barnaamijka nabadda shirweynihii aan ku qabanay buu ahaa kaas waa la oran karaa waa midda labaadna waxa weeye shirweyne caadi ah buu ahaa shirweynaha haddana waa shirweyne aan caadi ahayn labada shirweyne waxa weeye 4 sano sida xeerkan ugu qoran inkastoo ay tahay in wax laga bedelo sida xeerkan ugu qoran 4 sanaba mar buu dhacaa marka muddada wixii u dhaxaysa shirweynihii la qabto waa shirweyne aan caadi ahayn xeerka lagu qabanayo shirweynaha aan caadiga ahaynna waxaa qoraya xeerka ururka qoraya inuu habka ku qabsoomayo marka habkaasaa loo maraya laakiin shirweynaha caadiga isagoo muddadiisii u dhacaya shirweynaha aan caadiga ahaynna wuxuu ku qabsoomayaa xeerka sida kolba maaragtay ku xusan aad baa mahadsantahay